qisadani waan wada waxay anfacaysaa walaalayaal qof walba oo caaqil ah oo xikmad ka dhaxayli karo waxay kaloo anfacaysaa qof walba oo kamban u shaqeeya ama shirkad u shaqeeya waxaan dunida aan ku noolnahay soo maray wiil dhalinyaro ah oo saalix ah taqi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran muddo badan ayuu kambaniga u shaqeynayay mishaarkiisana wuxuu ahaa $150 marnaba saacadda shaqada ah marna muusan qiyaani jirin marna kasoo dibdhici jirin waqtiga aad ayuu u ilaalin jiray shaqadiisana si hagar la'aan ayuu u qaban jiray muddo ka bacdi maalin ayuu 6 saacadood soo daahay ninkii kambaniga iska lahaa wuu weydiiyey markaas loo yiri maanta muusan imaanin saacad 6 saac ayuu soo dibdhacay wuxuu garwaaqsaday ninkan shaqada badan u qabanayo oo howlaha aan la qaban karin qaban jiray inuu mishaarka ku yareeyo wuxuu go'aansaday markuu imaado inuu $150 kale ugu daro $300 uga dhigo wiilkii saalixa ayaa yimid asigoo aad u faraxsan markaas uu u tagay badroonigii wuxuuna ku sheegay maadaama shaqadiisa 6 saacadood ka soo dibdhacay inaan loo ciqaabaynin lacagtana loo badiyo $300 looga dhigay aad ayuu u farxay wuxuuna yiri alxamdulillah muddo ka bacdi sanawaad markuu hadana sidii ku shaqeeyay ayuu maalin soo istaagi waayay kambaniga shaqada ninkii shaqada iska lahaa aad ayuu xanaaqay kambaniga lahaa maamulihii meel ayuu ka fiiriyay wuu weydiiyay markaas lama joogo wuxuu yiri kala hor wuu maqnaaday lacag ayaan ugu daray hadda wuxuu rabaa lacag in ugu daro wallahi haatay ka tahay markuu yimid ayaa la yiri badrooniga ku wacay oo u tagay maamulihii waxa lagu yiri mushaarkaaga $200 ayaan ka jaray uu dhula cadeey alxamdulillah ayuu yiri markaas ninkii badrooniga u dulqaaday waa kaalay yiri shalayto markaan 150 kuugu daray waa faraxsaneed maanta markaan 200 ka dhimanay alxamdulillah tilmuddan kaama muuqato markaas uu ku yiri ha shalayto markaan 150 kuugu dareysay wiil ayaa ii dhashay saacado badan ayaan agtooda joogay kadib markaan shaqada imaadan waxaad ii sheegtay inaad mishaarka wax ugu dartay waxaan garwaaqsaday ninkaas ku soo kordhay familkayga in ilaahay subxaanahu wa tacaala risqigiisana ku soo daray hadda markaan maanta shal aan maqnaayna waxaan geeriyotay hooyaday dunida ayay ka baxday markaan ku imaadana waxa ay tiri $200 ayaan ka jaray waxaan garwaaqsaday hooyo saamigi ay ku lahayd irsaaqada aan shaqeynayay in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa laga jartay marka marnaba ma naxsani mana marweysni laakiin hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada Allah ka waraabiyo hadaba qisadani waa laba shay waa qanaaco waa mid kale ah iyo dulqaad iyo adkaysi hadaba hawsha haysid waliga hawa ka laan qabo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku xirno ilaahay inta haysta isaga ayaa ku barakeenahay walaal muuqaalkan saad u dhageysatay si walaalaha kale u dhageystaa adigana si gudbi oo si faafi wajazaakumullahu khayr